maartay in loo dhiibo guddidani abaaraha maxaa yeelay siday wax ugu qaybi jireen dadka iyo tuulooyinka ilaa loo yacdo ilaa halkay maartay ka noqoto maartaanay xuduudda gobolka awdal ilaa ceel sheekh iyo halkay ka noqoto muxuu ahaa garbahaad macnaha cirifyada gobolka awdal loo jiray ama awdal iyo salal inaan u qaybino 700 tan bay ahayd 700 tan dawladdu waxay ugu tala gashay kolkii maartay raashinka laga soo wareegay Berbera lagu soo wareejay maartaanay xagga awdal 20,000 oo dollar bay dawladdu ugu soo tala gashay nool ahaan noolka 20,000 saddex xildhibaan baa loo soo dhiibay saddexda xildhibaanna Boorame la yimaadeen sidii ay markaa u kala siiyeen baabuurtii Berbera wax ka soo qaaday iyaga cidiguma tegin oo gacantooda ugu qaybiyeen xogayuuna war buu ka hayay guud ahaanna kolka la yiraahdo maamulka gobolka awdal barasaabka iyo cidii la shaqeysa qofka kaliya nagala shaqeynayay oo barasaabku u igmaday waxay ahayd Asad Abdi Jaamac oo xogayaha ah maartay gobolka barasaabka maartay xogayiisa isagana marka qoraal ku wada sameeyay sidii lacagtaas soo baxday waka isagoo cadeeyay oo sheegay maartaanay intii xildhibaanada oo la fuliyay lacagtaasi cid guddida abaaraha ay gacanteeda soo gashay ma jirto oo annaga yana inaan noolkii Berbera laga soo raashinka in lagu bixiyay kaliya ayaa noo maartay yana ayaa noo geysiyay sidaasna sidii waxay ahayd waayo 20,000 raashinkaasi ma soo raraynin halka loogu talagalay ma gaarsiin karin sidaa darteed waxyaabaha ay markaa maartay xagga sare ee maartay madaxtooyada ama madaxweynaha oo ku saabsan ku qaabsan xagga macaawinka waxa ku jirtay in ilaa 1,000 kiish wax ku dhow ama 1,000 kiish loo iibiyo noolka inta kale ilaa baabuurtu markay keento Boorama isga noqoto waxa weeye baabuur baa daraw daldalaysa dhulkii kale ee tulooyinkii baabuurtaasi dambe way ka qaalisan yihiin ku xitaa Berbera ka soo qaaday tusaale haddaan idin siiyay imika kolkaan goray cawl baabuurta kula heshiinaynay raashinka halkaan baabuurta kala wareegaynay hargeysa ka keentay Berbera baabuurtii gobolada iyo degmooyinka u sii kala gureysay de qiimo qeyr caadi ay yiraahdeen waa dhul raf ah waa dhul maarataanay dhiiri meedhana buuraa laga dhacayaa kaba soo qaad masalan haddaan soo qaadno masalan tuulooyinka imika fiqaadan oo kale iyo Sheekh Waare $3 iyo bar bay ka kici waayeen kiishka inay ku qaadaan wadarka kartaa markaa gaariga Berbera ka soo qaaday Boorama keenayaan inuu $3 iyo bar ku soo qaaday baa dhici karta marka lacag fara badan baa markaa ku soo baxday raashinka qaybintiis markii annagu isku daynay in loo iibiyo waxooga 300 kiish ama 290 bay ma filaya oo maartaanay la keenay Boorama maartaanay waa lagu xiray ragii culimada ahaa ee iibinayay awoodna waxay ahayd in ilaa 1,000 kiish loo iibiyo oo marka lagu bixiyo noolka wixii Berbera laga keenay wixii kale lagu bixiyo tii aflagaadadii ka dhalatay waxay culimada lagu xiro lagu aflagaaday waa tuug baa la yiri maartay annagu maxkamad inaan tagnaan xaq u lahayn oo isdaafacno oo dadkii una xumeeyay aan maartay ka daba tagno laakiin waan iska daynay annagu sharafta gobolka eegayna iyo guddida baa wax dacweynaysa sidaa markay arrintu ahayd waxa dhacday in lacagtii 300 wax dhinaa kiish la iibiyay wixii noolka laga bixiyay maahina inay soo hadhay dhul fara badan oo markaa raashin wax loogu raro la waayay oo degmada Boorama u badan taasi waxay markaa kaliftay guddida abaaraha oo lacag haraaya u haysay abaaraha oo account ugu jirtay oo doonaynay markaa haddii masalan abaarihii iyo dadkii tabaalisnay wax loogu qabto masalan luqayo kale in loogu sameeyo laashash lacag 20,000 meelaha saayid oo hadha ahayd ayaa waxaan ka soo qaadnay lacagta hadda halka ku qoran maxay daan 7,280 ka ah lacagtaas laga sii qaaday iyada oo xogayaha barasaabka ka wakiilka ahaana oo markaa
ogaa u joogay lacagta maartay siintii la siiyay baabuurtaas lacagtii ilaahay hadda dawladda waa lagu leeyahay waana ka sugaynaa waayo jiha iska lahayd lacagtaas jihadina lagama maartay lagama qaadi karo oo meel bay ku magacawnayd meesha ku magacawnaydna loo soo celiyo halkeedii loo soo dhigay ayaa doonaynaa taasi weeyaan maartay horta muhiimka inaan cadeynay weligeed way dhacdaa mucaawino marka la qaybinayo haddayna dawlad ka bixinaysaa noolka jirin kulliyan haddayna jirin in raashina badh loo iibiyo noolka laga bixiyo ila qofkan qaybinaya isagu jeebkiisa ka bixin maayo lacag nooma haye taasi waxa weeyaan maartay dadka hadda markaa mar walba hoos cararaya mucaawinooyinka maarataanay ama faska ka sameynaya ama dadka ku aflagaadeynaya waxaan malinayaa dee waxa weeyaan sidii looga bartay musuqmaaqsadii dawladaha inay doonayaan markaa mucaawinada iyaga loo dhiibo kadibna ay markaa maaragtay siday doonaan u takrifalaan annagu si ammaan ahaan dad waxaan nahay haddii la noo dhiibo 10 kiish 10 kiish halkay ku socdeen inaan geyno ammaana weeyaan ilaahay baa nagu ilaashanaya intaanan dadba nagu ilaashanin markaa anagu waxaan caddaynaynaa haddaan guddida abaaraan nahay anu guddoomiye xigeenka ahay oo guddoomiye naga maqanya hadda waxaan caddaynaynaa barasaabka gobolka awdal cabdo ayar inuuna maaragtay raashinkaa meel dhow iyo meel dheer midna ka soo gelin warkiisana ka qaadanaya un xogayihiisa ilaa yowna haadana warbixintii oo weliba lacagtii annagu aan doonaynay ee ka maqnayd guddida abaaraha aan ka doonin hadda inay iyagu maaragtay xagga dawladda nooga keenaan ay hortaallo hadda isaga waxaana wanaagsan qofku wuxuu ka warramayo inuu og yahay ogaal u leeyahay wixii waxaa dhaafsani haddayna waxaasi au qof ka warramaya dhacda jirta haddayna ahayn dee waa in maxkamad laisku geeya waayo qofka sharaftiisii marka meel laga dhaco weliba hadduu mas-uul yahayna kasii daran waxa weeyaan in markaa maaragtay arrintii loo gudbiyaa maxkamad oo ay maaragtay la caddeeyaatee haddii kale maaragtay qof walba qof wuxuu doono ayuu ku caayo ku sameynaya haddaana guddiga abaranay marka waxaan caddaynaynaa barasaabku bilowgii markuu annaga noo yeedhay yidhi idinkaa gobolka uga wakiila raashinka qaybintiisa iyo meel kastood wax gaadhsiin jirteen gaadhsiinteeda idinka uga wakiila markii awraamar nagu siiyey keliya wuxuu nagu daray xogayuhu inuu nala shaqeeyo sidii baan ku dhammaatay gebagabadiina waxay noqotay $7,280 inaan ku yeelano dawladda oo noolkii baabuurada ah ilaa haddana aan ka sugayno marka bal 20,000 dee xogayaha idin sharxay sida u baxeen oo noolka hore laga soo qaaday barbara may soo dhaafinba waxaan maarataanay leeyahay markaa mas'uuliinta joornaaladaas oo kale akhriyayahay waa inay ogaadaan ayadda aan akhriyay hadduu faasiq qof yacni faasiqa waxa qofka daacadda ka baxay aan run sheegaynin in beenaalaha ah hadduu war idin keeno fatabayanu hubsada si aydaan qof maaragtay iska beri ah dulmi ugu qaadinaydaan hadhow ka murugoonin oo ninkaa maxaan hubsan weyne aan xukunkaa ku qaadnan ilaa aan loo odhanin waxaan leenahay markaa barisaabka khayr allah siiyo arrintaa uu ka beri yeelan yahay intaasaan kusoo gabageyna billahi tawfiiq wa sallallahu ala sayyidina maxamed waa abow been weynaadii ninkii yidhi unbay horta ka dhigan tahay waayo guddida shadii uu yeedhay ee uu raashinku barbara yaalay anuu raggii barbara loo diray baan ka joogaa ee tegey ee raashinka soo raray ina ceebtaan maraynay qaybtii lughaye sayda halkanba ma soo marin 13 baabuur waaweyn baa mar 24 tan ceebtay mareen 15 baabuur waaweyn baa halka soo maray 15 baabuur waxa lagula soo heshiiyey lacagtu kala laba yahay lacagta maxay ahayd boorama dhexdeeda iyo lughaye dhexdeeda soo gaarsiinaysay waxa bixisay tufriga bixiyay oo halkaas iyadu ka noqonaysay lacagta boorama laga bilaabo furin law yacdo waxa bixinayay 20,000 baa ka koowaha oo boorama ka bilaamaysay ama lughaye ka bilaamaysay sidaa darteed dawladda kulka ay soo bixisay lacagta qoladii ka soo rartay ee sidaa u soo halkan soo marisanahay barasaabku annagoo qorayacow baabuurta ku qaybinayno inba inteedii saarayna buuqa ka dhashay 14,000 tanna waad garanaysiin maxay 7 maxay ahayd 100 tan oo baabuurta isku wada jirto iyuuna maray oo hargeysu noo dhafa alla inila jiru yidhi
ciddani wax ku sheegtay horta xubay cuntay leeyi anu joornaal uma malaynayo website uma malaynayo qof ooyayuu baa qoray oo meesha uga bartay laakiin haddii sidaa la qoran wax fiican wax wixii ku dhowdhowin la qoro wuxuu yidhi weligay raashin ma qaybin guddida abaaraha tiin magaaladana waan ku cusubahay tuulooyinkeedaba ma garanayo innigaa nii xil saaray inankaygaa xogayii waxbuu inii qorqorayaa awoodda innigaale iyo ninkaa guddoomiye ku-xigeenka ah haynala ogaadaan marka guddidiina sidiiba u maamushay lagama soo caban oo lama odhan intii tuulo ee gobolka awdal ka koobnaa waa la wada garanayaa tuulaha magaaladaa bowrama maahayna intii kale nin kiish baa iga hallaabo ma arag yidhi joornaal ma sheegin dadweynena ma soo sheegin kani dhexda ka samaynayay waa ayb loola badheeray un bara saabka iyo guddiduna way cuntay unbay ka dhigan tahay kolkaa ilaa naguba noo dhibo way og yihiin sidaa darteed horta haddii wax la qorayo xaafada lama garo asalna waxaan unahay reer boolaba waa kii aka dhalan 6 joog la yidhi ninka cilifka way ammaani jireen xagga ayada ka keeneen horta ma garanayo ee ilaa xaafadii galeen iyana meeshuu ka cunay qudrad iyo meeshuu ka koob kafaya ka cabay aqalku seexday qoreen war qaybtaasi ceeb lahayn ma ayna horta qofkii qorona uga tooba keen qof ila saan malaynaya ila suuna wuxuu iyo wax walba lagu hadlaa waxa weeye lacagtan kale ee 20 kun xogayaha guddida ma arag iyagu ninkii ugu dhawaayay ka soo qaaday wax aniga ahayd iyo xogayaha 5 kun iyo dhowr boqol intii dheerin magaalada waxaan uga qaadnay degmada Baki waxay la joogay xogayaha iyo maxay ahayd guddoomiye ku-xigeenka maxay ahayd waxaan u jeedaa ila kan qorshaynta dibudejinta waxaan ugu tegnay shaacada ayaaliya Abubakar warqadii waxaan intii baabuureen u raray Baki baan u geynay waa qiimaheedii baan u geynay dirawaleyntii baan nala socotay dirawaleyntu baalkii ugu dhiiban 5 kun iyo dhowr boqol degmada Sayda oo kuwii hoose aan ahayn oo jiri iyo ilaa kod barnaamijka Abdul Qaadir iyo Sheekh Hawaariye fiqaadan iyo Dabadilaa intaan 4 kun iyo waxay noqotay 900 dirawaleyntii oo la joogtaan gacantayda kaga qaaday waa ugu dhiibay dirawaleyntii wala la weydiin karaa hatta khidmad lama saari anaga iyaga odayaashii sidii bay ku qaateen intaas kolka isku darsadaan ninkii joornaalka qorayo wixii baaqay ka soo haray waad garan lugayana 9 kun iyo dhowr boqol baan u diray nagu yiraahdaa xildhibaanadu degmadii Sayda ee hoose iyo lugaya baabuurtii halka ka qaadayso ugu dhibadnay 20 kun ninka bala saab ku cunay horta halkaas ay mareen raashin kana ma arag war waxa weeye hadii wax la qorayo wax sharaf la qorayo ka soconayo waxna lagu daro waxna ay jiraan meel marad lama taabto والله أنت أمر دليلني وعد يشاء قف إلى صعب ورخدة قرية كتوبة كم بالله والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا معي كنت ذي الأوريج جري كنت الأبارة وأبار ما طلع بحياة الحمد لله رب العالمين مرة بروح نتاجنا هي هذا تبرع ونتاجنا لكن ما تميهن كنت أبارة برواقة كتيرة برواقة النقصان بيننا لكن تبرعات كمان نامحين أنت لا يخص يسا يعني كجوابين أنت لا يخص يسا وحوي أنت ويب سايت كبك قرن لأنه خص يسا raashinka tukhriga ku soo deeqay ee tirada la soo sheegay ahaa ee barbara laga soo raray ee guddida qayb kamid ah barbara ka soo raacday ee ka soo bixisay wixii barbara bawrta laga soo raray ilaa ay soo gaadhaysay gobolka xaggaas lagu bixiyay oo lagu siiyay marka la soo gaadho gobolkan barasaabka gobolka awdal isagoo iska riixaya guddida iyada uu ku wareejiyay tuu noo yeedhay wuxuu yidhi waxaa laygu kii sheegay inaad magaranaysaa howlaha ku soo jirteen tanna inaad iga asturtaan baan doonayaa waxay nagala soconaya dusha xukaya iyo ilaa iyo magaranaysaa ceel la helay waxa bixaal garan baa laga bixiyey 20 kun waxaa laga soo diray Hargeysa 3 xildhibaan baa loo soo dhiibay 20 kun waanu la xisaabtanay sidooday u baxeen xildhibaanadii sidooday u bixiyeen baabuurtii baa la siiyey kharashku wuxuu noqday 20 ka 300 oo kiisho la iibiyo raashika laga iibiyey 7,280 annaga naga maqan hadda oo ka doorayna dawladda intaas uu noqday xisaab celintii
kharashku taas ku qoray warqadda buu ku qoray waanu xisaabtanay barasaabka hortiisa waanu xisaabinay qoraalkii baanu keenay raashinkii isaga laftiisa warqadaas ku qoray meel walba sar u gaarsiinay halkaas ku qorayahay waka degmo walba tuulo walba wixii aan geynay xisaabinta halkaas ku qoranta wax badbadow maaha wax cad weeye 20 kun xildhibaanadii dib uba geysanay way bixiyeen oo gacantooda ka bixiyeen oo markhaati baa ka dhawa baawti ba qaadan 300 kiish xamaalkii hawlihii baawurtana wadada shidaalkoodii kii karaha kiradiisa iyo 300 kiish ku baxay waxa kale ee baxay ee baawurta degmada boorba lagu qaybiyo baxay 7208 haddana dowladda uga fadhiyaan ka dooraynaa inay raacdo adoo tabarcaad u taagan xoolaha tukriga ku soo deeqay ee bacal kharashkoodii wata inay raacdana dib u ogolin oo ku dhex lunto taa dowladda uga fadhina marka waxa leeyahay waa ceeb aan geedda la isku soo gaban waa bareed waa fadeexad website-dada iyo magaraysa saxaafadaha ceeb bay ku tahay waa inay rumo bataan inay dad isceebeeyaan maaha inay umada ceebeeyaan maaha waxaan markhaati ka nahay bara saab in uuna faraha la gelin raashin inuuna lacag la gelin lacagta 20 ka inuuna dhasaarin inuuna gacan saarin ma qalmahin yaanu cadaynayna raashinka baawurta goreeyo caw taagnayd ee degmada boore ma ahayd iyo ilaa iyo garanaysaa xareera ilaa cabdulqaadir oo raran buu soo hargeysa ku socdo baray kiish bana ayaa laga wareegsanaa baawurta raran buu iyo ku baray halka uu yiraahdo culus baa ku jirtay baa salaam ilaahay waxaan cadaynaynaa eedaasi inay tahay tuqaawan oo been cad ah iyo cadaynaynaa cadaynteedina waan haynaa marag baana ka nahay inuu faraha la salaam calaykum warahmatullahi wabarakatuh kuwana waa fooray